Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khayrtan ugu xiran KM Studio meel walba dunida tacaladeeda ka joogtaan guys waxaad ilaahnaa soo dhawaadaba jimca wanaagsan meel walba oo joogtaan sheekooyinka idin hayna maanta waxaa ka mid ah tababaraha Man United Erik ten Hag oo lagu eedeeyay inuu caqabad ku yahay ciyaartoyda naadiga Man United khaasatan kuwa daayarta iyo Joe Havertz oo asiguna sheegay inuu Arsenal kalsooni buuxdo uu ku qabo inuu ku qanacsan yahay hab ciyaareedkiisii dhanka aflaamta Bollywood xitaan ulo waa canana filimkan dhawaan usoo baxay Heritage Correction Ani Kapoor iyo Deepika Padukone asigana siduu ku furmay xaalkiisa siduu yahay iyo filimka dhawaan Shahid Kapoor iyo Sonam usoo baxay Catherine Sonam gabadha la yiraahdo oo usoo baxay asigana sida xaalkiisu uu yahay sheekooyin idinkaga hena guys intaan u guda galin barnaamijkeena waxaa idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan channelka noo sii share gareysaan noo sii like gareysaan soo dhawaada guys wax badan oo hawada aan ka maqnaay asxaabteyda wax kale ma ku maqnayn waxaa mashquul iyo waxyaabo family problem iyo waxyaabo iska jirjira marka falilah alxamdulillah laakiin hadda wuxuu iga soo idlaadeen hadda wixii ka dambeeyna insha Allah channelkan toos oo soo sida caadada noo ahaa jirto noo ahaa doona sida toos oo warbixino idin soo gudbi doona hadda kadib waxaan isku sii day doonaa xoogeena idin saaro laba barnaamij ama saddex barnaamij wixii markaas taagan dhacdooyinkii markaas jira dhanka sports ka noqoto ama dhanka aflaamta ha noqotay in idin wadaago to ilaaraado tababaraha kooxda kubadda cagta Man United ee tababaraha Ten Hag ayaa la sheegay inuu caqabad weyn ku yahay ciyaartoyda da'da yar inay sii wadaan guulaha ay naadiga ay gaarsiinayaan ayadoo naadigaasna ay baxsanayso booska kaalinta ama Champions League loogu soo baxay ciyaartoydan oo kala ah Hojlund iyo Alexander Garnacho iyo ninka kale la yiraahdo Kebe Amano ayaa soo bandhigay sabir cajiib ah intii lagu jiray guushii ay ka gaareen kooxda West Ham su'aasha meesha taala waxay tahay xidigahan guusha u horseeday naadiga Man United inay ka gaaraan guul muhiim ah naadiga dhigooda West Ham ma sii wadan doonaan qaab ciyaareedkan quruxda badan ee uu soo bandhigay naadiga rajada Man United hadda u dagaalamaysa ayaa inay u soo baxdo Champions League haddaba haddii saddexdan ciyaartoy oo totalaar laga dhigo waxaa xaqiiqa in naadigan uu gaari usoo bixi doonto ama ay gaari doonto afarta sare ama ay ka mid noqon doonto maadaama ciyaartoydan oo kulanka West Ham uu soo wada safay ee guul muhiim naadiga ay gaarsiiyeen haddana waxaa la xigaa kulanka xiga Aston Villa ay la doonto maalinta Axadda saacadu markay tahay dhanka Afrikada waa 10:15 marka sidoo Ten Hag wax u safo haddii uu kala reebo iyo haddii sidee wax oo yeeli doonaba kolley waqtigan u deyn doonaa hadda warbixintaas halkaas kaga gudubno aan u soo laabano warbixinteena kale ku xigta farxadii raaxaysiga uu ku dareemayo xidiga dhawaangalka ee Chelsea kaga soo biiray ee reer Jarmal kooxda Arsenal ee Joe Havertz sida uu sheegay hadaba xidiga qadka dhexe kooxda Arsenal iyo xulka qaranka reer Jarmal ee dhawaan galka ay ku soo biiray Arsenal ayaa si uu u warama Sky Sports ayaa waxa la weydiiyay su'aal ahayd soo aragtaa kooxda Arsenal ee dhawaan ku soo biirtay maad ku qanacsantahay qaab ciyaareedkeedii asigoo su'aashaas ka jawaabayo wuxuu yiri Arsenal meel iga fiican nolosheeda inay soo mari doonto ma u maleynayo inkastoo waqtiga cajiib oo yahay haddana Arsenal waxa ku qabaa uu yiri raaxo iyo kalsooni buuxda 100%. haddaba ciyaaryahanka heerka caalamiga dalka Jarmalka u dhashay ayaa kaga soo biiray kooxda Arsenal xagaagii hore inkastoo aan baran in aanu aragno Havertz ciyaaryahanka hore waxa uu waqtiyo ciyaaray isaga oo ka qayb ka ah saddexda qadka dhexe ee ay ku jiraan Martin Odegaard iyo Declan Rice haddaba xidigan ayaa ku khasbanaaday xidigan 40 jirka ayaa ku khasbanaaday inuu soo bandhigo koox difaac badan ciyaartiisa laakiin waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay qaab ciyaareedkeeda Arsenal labadaas qodob baa idin soo qaadan labada qodob maanta wax xasaasiyad badan ee suuq aan website-yada qaar ka soo qaaday halkaas gabagabada dhanka sportska hadda labada qodob labada sheeko idin soo aqoon soo harto waa dhanka Bollywoodka sida ay shaacisay shirkadda aflaanta Bollywoodka ee box office filimka Fighter ayaa soo bandhigay hoos u dhac weyn oo ku yimid filimkan inkastoo uu yahay filim lacag badan
sameeyey waxa uu soo xareeyay 146.5 koror toddobaadkii ugu horeeyay, waana ka hooseeya filimkii la filayay in uu keeno 250 koror. Waa sida la filayay rajada ahayd inuu keeno 250 koror toddobaadkiisa koowaad. Fighter waxa uu ahaa filim la wada sugayo muddo dheer ilaa uu soo baxo maalintii Jamhuuriyadda habeenkii. Siraad Anand ayaa sanadkii hore soo bandhigay filimkiisii on-time blockbuster-ka ahaa ee Pathaan, oo la soo bandhigay filimkii la wada sugayay ee hawada sare ahaa ee Hrithik Roshan iyo Deepika Padukone iyo Anil Kapoor ahaa. Si kastaba ha ahaatee, box office filimka Bollywood uma soo bandhigin sidii la filayay kadib markii la sii daayay 22.5 koror. 25 bishii Janaayo, filimkan waxa uu soo xareeyay 146.5 koror toddobaadkiisii ugu horeeyay suuqyada gudaha. Guud ahaan suuqyada caalamka, tirada ayaa aad uga yar filimkii lagu sameeyay budgetka lagu sameeyay filimkan waa 250 koror. Si kastaba ha ahaatee, Shah Rukh Khan filimkiisa ee Pathaan oo sidoo kale keenay 250 koror wuxuu soo xareeyay 364.15 koror toddobaadkiisii ugu horeeyay. Haddaba Pathaan filimkan la yiraahdo Fighter waxaa la leeyahay hoos u dhac ayaa jira. Weli qarashka lagu soo sameeyay oo filimkan ku baxay budgetkiisii 250 koror ahayd wuxuu ka keenaa 146.5 koror. Haddaba aan aragno koley hadda maadaama oo hoos u dhac yimid, laga yaabay wiigan wixii ka dambeeya inuu sare u kac sameeyo oo soo xareeyo. Haddii filimka halkaas kaga gudubno, filimka Fighter ay noo soo qabtay sheekada kale oo ah filimka Terry Pathaan Maini Asia Dhuljahajiya oo ay wadaan Shahid Kapoor iyo Katrina Sanon. Filimka ayaa ahaa filim la wada sugayay, tiyaatarka ayaa la saaray. Filimkan waxa uu ku saabsan yahay nin dhalinyaro ah oo u dhacaya naag caqli badan kaliya si uu u ogaado inay tahay robot iyo in bini'aadam tahay. Falanqayn dadweynaha ayaa ka baxaya baraha bulshada. Filimkan wuxuu helay dib u eegis badan. Ka mid ah daawadayaasha filimka oo bartiisa filimkan commenti ka bixinayay wuxuu yiri qaybta sheekadu waa cajiib oo yiri, jihaduna waa mid ifafaale leh, jilayaasha oo dhan waa wada cajiib oo yiri, heesuna sidoo kale waa jartar baster. Mawduuc cusub oo gaar ah, guud ahaan waa filim oo yiri hit ah oo heer sare ah ayuu ku soo qoray bartiisa asigoo commenti ka dhiibanaya filimkan sida uu arkay iyo qaabkiisii sheekadiisii. Haddaba waxaan sugnaa falcelinta kale oo ka timaada taageerayaasha kale filimka daawanaya. Haddaba kaas waxaan intaan kusoo koobaynaa labadeena sheeko oo aan soo qabtay. Insha Allah guys, hadda wixii ka dambeeyay janaalkan si toos warbixino badan aan usoo dhigi doonaa hadduu la yiraahdo. Asxaabteeda ku xiran meel walba joogtaan, waxaad ileenahay waqtiga ka faa'iideysta, waqtigana ha idin wacnaado. Jimco wanaagsan. Janaalkan xaqiisa la iska siiyo, subscriberska, likesta haddii la share garay karo, commentiyada waana mahadsantiin guys.